ugu horeyn waxaan bogaadinayaa dhammaan dhalinyarada halkan maanta ku qalin jabisay ee dafcadda sagaalaad jaamacadda eelo iyo waalidiintii soo waxbartay sidoo kale waxaan iyana bogaadinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda qiimo weyn bay qaranka saaka u tahay inta halkan joogto qura uma ahee qarankoo dhan bay qiimo u tahay waxaa ku soo kordhay qaranka Soomaaliland saaka aqoon ayaa ku soo kordhay maalin kastoo jaamacad laga qalin jabiyana qaranka waxba ku soo kordha Soomaaliland intii ay jirtay kor bay u socotay dad fara badan baa mararka qaarkood baan arkaa oo dhinaca xun wax ka arka kitaabul asqar kana akhriya ee aan ummadda halkay ka togantii qiimaheeda qariya oo dad aqoonyahan qurba joog u badan iyo dad dalka jooga oo baksa horumarkeena Soomaaliland 30 sanadood 29 sano ay jirtay kuway kobcaysay kor bay u socotay maamul walibana waxbuu ku daray mid walibana meel buu ka qaaday 30 sano midnimadii Soomaaliya ay ku jirtayna marka la barbar dhigo maanta inuu ka qiimo badan oo ka aqoon badan oo ka dhulkeena dhismay inuu dhinaca ka eegno bini aadamku inuu dhaliishiisa qarsado iyo waxa ka qabyada maaha hase yeeshee waxaan leeyahay waa inaanu isbahadilin oo wax wanaagsan la qara ee uu qabsoomay waxa ummadana qabatay siyaasiyiin baan hormoodu ah siyaasaddu waa ta ummadaha kala reebta hogaamiyaasha ummadaha iyaga kala hormariya iyagana kala reeba aqoontu waa waxa ummaduhu ku kala hormaraan dunida saddexaad iyo dunida koowaad faraq u dhaxeeya waa aqoon darro dunida saddexaad ee Afrika maanta u badan tahay waa the poorest nation on earth waxaana ka dhigeen aqoon darro Professor Maxamed wuxuu soo qaadanayay Egypt 5,000 oo sanadood bay jirtaa Israa'iil oo 70 sanadood jirto la darisa waxa ka horreysay waa aqoon waxa kale hormariyay caalamkii soo tartamayay qarnigii 19aad Yurub ka abuuray kacaankii warshadaha qarnigii 20aadna Mareykan awoodii dunida u dhiibay waa aqoon waxa dadka muslimiinta dib u riday qarnigii 15aad 17aad ilaa 18aad waa aqoon darro Islamic golden age-ku dunida muslimku markuu hogaaminayay qarnigii 9aad ilaa 14aad sayniska aqoonta ma aha cilmiga islaamiga haddaynu tubtaa hayno aqoonta kubcino waynu horumaraynaa asaageena waynu dhaafaynaa maamuladii iyo siyaasiyiintii hogaamiyaashii qarankanu wax badan bay qabteen nin waliba in buu ku daray waxaan leeyahay waa inaynu aqoonta kordhinaa waa in dhallinyaradiinnan waxaa laydinka rabaa inaad aqoontii aad dalkan ka barateen wax ku soo celisaan daraasaad samaysaan rijeesya samaysaan ummadda aad wax u kordhisaan xil ummad wadareed ummad wada jirto wax ka qaban kartaa wax badan baa inoo qabsoomay waxa inaga xunna ragga la doonayay iyo hablaha la doonayay inaad siyaasiyiinta iyo ummad iyo waalidiinta la ku baraarujisaan oo u gacan yareeyal noqotaa weydin waxa inaga qabyaahi way jiraan waxaynu baahannahay nabad baynu haysanaa aqoon baynu haysanaa fursado badan baynu haysanaa waxa inaga qabyaa inuu baahannahay waxa ugu horeeya inaynu xoojino midnimadeena iyo inaynu wadankeena iimaansano oo horumarkiisa iimaansano oo gacmaha isqabsano ummad wada jirto wax qaban karta waxaan ku soo ururinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ummadda wax taqaana iyo ummadda wax aqooni ma sina Nelson Mandela hogaamiyihii madoobaha ee South Africa xilligii 94 midnimada qaateen dadka madow ka bixeen gumaysiga hal ku dhig weyn buu yiri oo ahaa education is the most important powerful weapon which you can take away aqoontu waa hubka ugu weyn ee dunida aad ku bedeli karto hubku waxbuu gumaadaa dunida ma bedelo sanada yar baa marka taariikhda la akhriyo ninka awoodda sheegta ee dunida qabsada ay xadaaradiisa ku baabada laakiin
Greek civilizationkii, Persian civilizationkii, faraacinadii, muslimiintii, Yurubi waxay dunida ku qabsadeen waa qoon waxaynu markaa aan leenahay fariintaasi wuxuu ku waday dadka madow oo waar waxbarta ninka cadaad gaadheen maanta waxaynu u baahanahay inaynu waxbarro inaynu warshado samaysano alaab soo saara waxa maanta ka muhiimsan inaynu dad soo samaysano warshado dad soo saara oo ah jaamacadaha waa ku bogaadinayaa jaamacadaha dalka Soomaaliland inay da'yar soo saaraan waxbaratay arrintan arrin la yaraysan kara maaha